marka gabadhan nin alle ninkii soo doonta ma arkino waxa waaye way diidaysaa marmar waxaa laga yaabaa qof ay wada sheekaysteen ishukaansadeen last minute arooska waa kanaa la dhahay khalaas la isku diyaargarina wax yar oo basiid ele maarta ay dagaal ka dhigay arooska waa baabi'inay macalin yaal badanaa loo geeyey sheekh badanaa loo geeyey qur'aanaa la saaray adiga maxaa intaas kaaga sii daran haddana ilaa dhakhtar maskaxda waa loo geeyey waxba ma qabtaa la yaray gurigiina khatiyaana laga taagay buuq xanaaq wax yar hor le ka xanaaqay dadkii dhan waa dhibtay guurkiina waa laga laayay marka aabaheeda is aragnay wuxuu dhahay war macalinka niyo dhibkaanana haysado waxaa iri haddiiba qur'aan la akhriyo waxba la akhriyaa iri qur'aan ilaahay halle waaye maxaa anay may siri aqbalka ilaaha wada asiri adigana kutuf insha Allah ilaahay aan waanu aqbalo qolay ay waxaad iiga sheekaysay gabadhaana iri ama sixra loo sameeyay waa loogu talgalay nolosheeda inaan la guursan haddii la guursadana in mataqaana oo maxaan ku dhihi lahay oo mataqaana guurkeeda uusan u toosin law miya mid kalena waxa waaye iri in gabadhan qof ay nafsi ka gashay il ku dhacday walaan wax ma ogeysid waa hubtaa ma aha khalaas waa imaanaa iri labado beri aan quraan saarayna waa arkaynaa insha Allah marka gabadhan maalin kasto quraankii aan saaray waa oonaysaa waa dadeecsanaysaa lak wax ma ku soo deganayn marka waxaa dhacday marka meeshii ka bacdi markii dambe gabadhii adiga waa waxbaa ku soo degay waxbaa ka soo dhex qeyliyey maalintii toddobaad waay 6 beri aan quraan saaraynay marka waa la celceliyey gabadhii wixii marka waxaan iri yaatiina adinka waxay u dhaheen anaga jeyshul cadaala aan dhahaa dulmi diid baan nahay jeyshul cadaala dulmin marabno maskiin dadoon waa gasheen saana u dhiboosan tan maskiin ma ahay dhaheen dulmigay geysatay xaqay gashay nafsigii ay maskiinka ka gashay taas anagana ka goonona oo se wax u jiraa iri waa isku naxay marka waxay ugu dhaheen gabadhaana ujeedaday dhaheen wiil baa jeclaan jiray oo aad u jeclaa wax walba u baahan tahay siin jiray bal ciddeeda xataa u biili jiray mar alle wiilkii markuu arooska u diyaar garoobay oo ciddii u soo socday aabaheed wuxuu dhahay ninkan waa soo baaray qabiilkiis qabiil yar uu ka dhashaday qabiil aan guursan ma aha gabadhii aan ku duceeyay wiilkan iska diray aaliyiri marka gabadhii aaliyiri marka meeshii ay dhaheen ayaga aqshakeeno dadkii jiniyaalka sheegoya meeshii xogaa ay aabaheeda la doodi lahayd okay la dhahday marka markaas wiilkii u tagtay ay dhaheen waa u deerisay wiilkiina wuxuu dhahay waa aabahaaga hadda le ma uu ogaaday qabiilka aan ka dhashay intaan sano marka lacagtii xoolahayga la cunaayay waqtigan la iga dhuminaya aabahaaga markaas qabiilkay kama fikrin miyaa bax uu dhahay saad iiga jijabisay adigana ilaahay saan nolosha ilaaha kaaga jijabiyo xaqaygana ilaaha kaa qaado marka wiilkay dhaheen marka si markaas ilaa hadday dhaheen waa xarooday dhaheen ma shaqeeyo wax ma qabsado gurigu ku xiran yahay salaad male diin male khalaas asoo dhan waa isku dhex darsamay dhaheen noloshiisa dhan ay ku ciyaartay dhaheen anagana saan le nolosheedu ugu ciyaaraynaa gurigana malala joogay dhaheen saanay iidan nafta aanan u keenin ilaa ay ka dhimato marka aabiga u jeesaday waxaan dhahay waxa ay ka hadlooyin arrinta rumiya haarun waaya sirri markaas waxaan iri iigi adinka dhibka dhan kullu fitna cinda algeel aabahaas ahay ninka sheekadan khasay marka gabadha keligeed le maxaa u gasheen aabahan maxaa ugu darweysan aabiyu macalinka isugu baxmay anima igu diroosaa haddana adaa ku fiicnaya iri gabadha nolosheeda saan u gashay maskiinkaasana hadda oo minim ku xiran yahay calaa qabiil darteed minim ugu xiran yahay adaas ah inay ku dhibaan ma ahan gabadha ma ahan marka almuhiim waxaa iri marka maxaa xalaya iri wixii waa dhacay laba dhalinyar noloshoodii oo saas noqotayna xaq ma aha qaladkii inay saxaanay rabaan adigana qalad ha ku saxina igana qaladka ay galeen hadda in la saxaan rabaa maxaa xalay waxaa xalay dhaheen ani ninkaa ma aamino laakiin adigaan ku aaminaynaa waa bixaysa ay dhaheen